qaraxan ayaa ka dhacay ka soo horjeedka dhismihii Somali Airlines ee wadada gasha airport-ka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyay 3 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi nafti halignimada ah halka dhagarqabihii maleegayay weerarkaasina uu goobtaasi ku qorbaxay isla markaana uu ku gubtay dab ka dhashay gaariga qarxay. waxyar kadib markii qaraxa uu dhacay oo halkaasi aynu gaarnay ayaa goobjoogayaal halkaas ku sugan waxa ay noo sheegeen in qaraxa uu dhacay xilli mashquul aad u fara badan wadada uu ka jiray ammaanka garoonka Aadan Caddena aad loo adkeeyay hase yeeshee uu koobmay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ay soo maleegeen dhagarqabayaasha argagixisada ee Al-Shabaab oo damacsanaa inay waxyeello u geystaan dadka shacabka ee safafka ugu jira garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. goobta ay wax ka dhaceen ayaa waxaa durbadiiba soo gaaray ciidamada ammaanka ayaga oo xiray wadooyinka soo gala halkaasi si looga hortago isku dayo kale oo looga bartay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab inay dadka ku waxyeeleeyaan marka qaraxyada noocaasi oo kale ay dhacaan. weerarkan ayaa waxa uu ka mid yahay weerar qorsheysan oo argagixisada Al-Shabaab ay ku doonayeen inay ku qalqalgeliyaan ammaanka magaalada Muqdisho hase yeeshee maalmihii la soo dhaafay fiijignaan xoog la geliyay hay'adaha ammaanka lagana hortagay isku dayo kala duwan oo lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo ammaanka magaalada Muqdisho. Ismaaciil Mukhtaar Cumar, telefishinka qaranka Soomaaliyeed.